بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada mar kale anagoo kasii wadayna meeshani hore aan maraynay. waxaan soo sameynay data analysis badan, marka waxaan u baahnaa markaan data analysis aan sameynay inaan dashboard ku muujino. dashboardka ugu horeeya aan sameynayna waxaan ka dhigaynaa mid PDF loo bedeli karo, kadibna la sii print gareyn karo ama cidda rabtid ay email kula share gareyn kartid. marka aan bilownay inaan design gareyno dashboardka. okay, aan soo kicino datadayna meesha hore noo maraysay. hadda ila socotiin qof walba uu save gareystaan jeclahay. sheet cusub abuur, sheetkan magaca u bixinaysa waxaa dhahdaa dashboard. datada ka hormari meesha ugu horeysa gey. okay, waxa ugu horeeyna aan sameynayno waxa waaye inaa imaatid view kadibna grid lines. grid lines ka markaa ka qaadid waxaa bixin doonaa cellskan. okay, backgroundigeena hadda waa clean, kadibna file tag, print tag. waxaan rabnaa inaan set up ka saxno page set up tag. waxa ugu horeeya aan sameyn doono waxa waaye marginskeena u imaanayna marginskan dhan 0 garee. mid walba 0 ka dhig, labadaana checkbox ka saar horizontal iyo vertical. okay, kadib page ku noqo, meeshan waxaa dhahdaa oo 98. okay, meeshan inay A4 ku ahaato waa mar walba. okay, kadib okay dheh. maxaan u sameynaynay inaan datadayna page u kala saarno. hadda haddii aad arkaysa xariijin yar dhankan soo gashay, waxay caddeynaysaa A ilaa K inuu page yahay. qaybta ugu hooseysana oo pageka koowaad uu ku dhamaanayana waa xagee 58. okay, marka waxaan sameyn karnaa laba noocba. backgroundiga oo dashboardkeena uu ku fariisanayo inaan color gooni u yeelno. waxaa imaanaynaa meeshan colorka waxa yar mid oo color weyn ahayn ka dhig oo aadna xuus u ah. hadda kan waxaan dooranaa white background oo darker ah. okay, kadib haddaan tagno print preview-ga, pagekeena dhan uu ku fadhiyaa. okay, anaga sida aan rabno waa marka la print gareynayo inuu pagekeenan uu noqdo hal page. okay, waxa ugu horeeya aan sameyn doono waxa waaye inaan shape soo gelino. insertiga tag, designka oo dashboardka ahaan shaqadiisi bilownay. kadib shape rectangle dooro, rectangle-ka meeshan ku sawir. intaas sameynin colorkan lama qurxoona, adiga hadduu kula qurxoon mid kala dooro. aniga white kiisi inaan ku celiyo aan doorbidaya. okay, kadibna white. okay, qaybteena insertiga imo haddana waxaad doorataa rectangle. waxaan kan u sameynayna waxaan rabnaa inuu hadhow title-keena ku fariisto meeshan. format markaa tagtid inta imow bedel. hadday tahay anaga waxaan doonana colorkan waxaan rabnaa anaga inuu noqdo colorka oo qeybaheena dhan ka muuqan doono. okay, kadib meeshan dhexdeeda waxaan rabnaa inaan wax ku dhex qorno. right click dheh, edit text dheh, title-keena magaca u bixi. maxaa u bixi lahayd? internal displacement data analysis.
this is dashboard. kadibna waxaad dhahdaa control A, homekaaga tag, farta waaweynay waxaa ku dhufataa dhexda geede. waxaa kale u baahan tahay dhigaan times new roman, internal displacement data analysis. colorka waa ka bedeli karnaa, waxaan dooran karaa color aan rabno, aan dooran karnaa colorkan haddaa doorano it's okay. boldi ka dhig, meesha dhan si fiican ugu fariistay. hadda wuxuu u ekaan karaa, wuxuu noqon karaa title oo dashboardkeena. haddii aad print previewgeena aan hore kasii fiiriyo, meesha ugu sareysa waxaa ku qoran internal displacement data analysis dashboard. okay, xayar hoosudid. good, dhexdana ku fariisi. it looks good. okay, ani hadda wuu ila qurxoon yahay designka koowaad. mar walba print previewga tag, sidan uu yahay unbuu hadhow daabacadaadana kugu soo baxa ama pdf markaa u bedeshid. mar walba waxaan print previewga u tagay. print previewga intaad soo saartay haddaa rabtidna qaybtaas agteeda tag, waxaad dhahdaa more comments, kadib meelahan kasoo dooranaysaa. anigu igu jira already inta markaa ka dooratay print preview. okay aad leedahay. okay, waxaa u baahannahay dashboardka inta aadan horta sameynin waa inaa marka hore aad lahayd qorshe dashboardkaaga aa u lahayd. haddii laakiin aad markii hore aadan qorsheynin meelaha aad kala dhigaysid grafyadaada ama visualizationadaada, waa ku wareeri doontaa. qalin iyo warqad qaada marka hore, qalin iyo warqadaas ku sawir meeshay wax kala galgalayaan. waana inaa raacdaa best practices. best practices waxaan ula jeedaa dashboardska nooc loo sameeyaa jira markii ay interactive yihiin, nooc loo sameeyaa jira markii ay yihiin mid printable ah oo la daabacayo, sida kan hadda aan ku bilaabayno oo kale. waxa ugu horeeya mar walba qaybta ugu sareeya ka muuqanaya waxa weeye waxaan aan dhahno key figures ama KPI, key performance indicators. hadda anaga datadeena haddaa dib ugu noqotid, maxaa is leedahay key performance ama ay noqon karaan key figures, figurada oo waaweyn. good, datadeena haddaa u noqono key figures waxaa noqon kara total individuals iyo total families. okay, haddii meeshan uu noogu jiro age ama age grouping, waxaa dhihi lahayd iyo sex uu kala baxaayo, waxaa dhihi lahayd female oo total ah iyo female oo iyo male oo totalkooda noocaas kala dhihi lahayd. marka waxaan u baahnaan doonaa hal pivot table oo caddeynaya taas. si degdeg ah pivot tablekaas ugu sameyno, mid pivot tableadan ka mid ah aan soo qabanno, aan duplicate ku sameyno. horaan iigu sheegay waxaad duplicate ku sameyn kartaa kan korkiisa marka aad tagtid oo sheetka uu ku dooran yahay, control aa qabanaya. control markaa qabatid dhinaca le u jiidaysaa, mid cusub uu ku abuuraya. kan cusub uu ku abuuray waxaa dhahaynaa key figures. anaga uma baahnin kan, delete garay. meeshan categorization uma baahnin, waxaan u baahanahay labadan keliya meeshan ay kasoo muuqdaan. labadan iwaani farta weynay wax yar, marka farta weynaysiina times new roman ka dhig, boldi ka dhig. good, colorka darabtid. okay, colorka darabtid waxaa ka dhigtaa blue. okay, waxaan rabnaa anaga total families iyo total individuals inaan xaggan ugu soo cano. magaca ka bedelkan waxaa dhahdaa pivotkan magaciisa waxaa la pivot key figures. key figures marka meeshaan imo waxaan u baahanahay iyagana boxyo, laba box oo yaryar inaan keeno. insert tag, box soo qaad. meeshaan waxaa dhahdaa la align garee qaybtan kale, waxyar korgey. ka markuu saas yahay control qabo si uu duplicate kugu sameeyo.
haddaa meelaha maraysid oo saan aad shift la qabatid asaa ku align gareynayo. Okay, adoo meeshaan markaa marsiin. Okay, aan dib ugu celiyeysa fahantaan oo kale kan i abuuran aan horta toosiyo sida aan ka rabo aan ka dhigo. sidaan oo kale aan ka rabaa waxaan yar hoos uga soo jiid meeshaan. Designka iyo creativity qof walba noociisa u qurxi lahaa uu sameynaya meeshaan. kan marka uu ku dooran yahay control la qabo, control adoo la haya si uu kula simo kii hore abuurtay shift la qabo asaa kula simaya day meesha ku day. marka kan waxaan u rabi doonaa in total families galna kana total individuals boxi yar oo magacyadooda ayadana aan ku qornaa hoos geyno. asagana copy control la qabo. good. kan marka waxaa kaloo u baahnaan doonaa inaan kuwii kalena soo dhigno laakiin aan key figures iska dhamayno marka hore. boxkan korkiisa tag. marka korkiisa tagtid boxka korkiisa aad ku dhufatid meeshaan formula barka ma aragtaa ku dhufa hadana asagoo ku dooran boxka equal leh. equal marka aadid waxaa raadaysaa pivot key figureska waxaan rabnaa total families. total families get pivot data wuxuu soo qabanayaa function get pivot data la dhaho uu leeyahay pivot table-ka. marka enter added this formula is missing a range reference of defined name. oo ogaa inay soo baxayso laakiin waxaan rabaa inaad adigana aragto sida loo xaliyana aan ku tuso. inta badan get pivot wuxuu leeyahay function kan asaga iskala pivot table-ka. sometimes reference oo caadi ma sameyn karta. hadda anaga equal markaan dhahono waxbaan soo reference gareynaa waxaan rabnaa pivotkaas datada total family ku jira inay meeshaan kasoo muuqato laakiin get pivot datadaas aan ku ogolaanay. okay, marka waxaan sameyn karnaa in aan asaga turn off ku sameyno. imo inta pivot table kaaga dooro analyze tag options tag kadibna generate get pivot kas tigta ka qaad. tigta markaa ka qaadid usoo noqo meeshani boxka dooro equal leh equal marka dhaadid key figures add total family soo dooro enter leh markaan toos usoo qaatay. okay, resize garay resize garay markaan resize garay host ka geliyo. okay, good. kan magacaan u bixinayn maxaa waaye total families. total families no cancel leh inta imo korka right click leh edit text leh kan waa text caadi ma aha wax reference gareynayso. good. kan total families aan u bixinay kan right click leh edit total individuals. okay, dooro kulli waxaa dhahdaa bold kana soo reference gareynayna asagana. markaa boxka dooratid formula barka tag equal leh kadib waxaa tagtaa pivotkaaga meeshuu yaalo total individuals soo dooro markaa kusiis enter dheh datadii meeshuu kuu keenaya. good. hadda meeshaan waxaa labadiiba waa noo imaadeen. maxaa kale noo dhiman? waxyaalaha kale noo dhiman waxaa waaye inaan graafidii aan soo sameyn inaan mid walba keeno mid walbana siduu ugu haboon yahay aan keeno. mid walba aan soo qaadno control x aan soo leeyahay waa cut aan micnaheeda ah. hadda meelaha iska dhigaya laakiin waan arrange gareyn doonaa. kan resize garey meelahan hoos ku aadi doonaa jeclahay by month waxba baan gelin
settlement kan soo qaad control x. Okay, markaan waxaan u baahanahay isagana inaan keeno settlementiga. waxaan ka soo dhahnay kii control v dheh. settlement type kan asaga resize gareey. mid meelahan iska yaal waa arrange gareynaynaa kulli aan wada keeno kulli. category-ga isagana resizing u baahnaan doonaa. control x meeshaan keena isagana. category key figures waa soo sameynay. kanasna resize gareey. control x meeshaan keen. halkaan taas keen. waxaa noo dhiman region. good. region resize gareey. control x dashboard good. okay, kan inta best ku dheh. marka region-ka iyo trends-ka way wada degi karaan aan malaynaa. no, kan meeshiisa yaalo. arrangementingan qof walba design-kiisu u fariisiyo. marka ugu horeysa hadaa fariisid inaad mar labaad u baahnaan laga yaabaa in xitaa datadan dib ugu noqotid. marka ugu horeysa iska fariisi design-kan. ka dhigno aniga settlement type individuals. kan intuu fariisan karaa. mid walba qaybtiisaan la siin. inta u dheeree kan se u fududaa ma aragtaa. waxa u daran waxaa waaye marka ugu horeysa inaad datadaada cleankeeda iyo soo fariisid iyo analysis-ka. wixii ka dambeeya waa creativity-ga ay ku xiran tahay. hal maraan inaad fariisid bas u baahan tahay. halkaas mar haddaa fariisid inta kale dhan waa kuu hagaagayaan. good. kan oo kale marka inaan sii resize gareyno. maxaa kale kan meesha dhan ku jiid. waxaan ka dhigi karnaa weliba inaan region-ka kor yara keeno. kan aan hoos geeno. okay, hadda preview fiirino. good. hal mid bas aan dooran preview haddaan fiirino. okay, almost datadan hadda way habaysan tahay. dashboard-kan meeshaana hal gaab ku jira. gaabkan wuxuu ku habeysmayaa labadan hoos lasoo dhigo. qaybta hoosena waa footer-kaaga. okay, labadooda hal mar isla dooro. hoos usoo jiid. isla simaan. meeshaan waxaa aad muhiim u ah inay soo gasho taariikhda. taariikhda muhiim u ah. taariikhda marna ma ka tegi kartid. datadan xilliga ay soo baxday iyo waxa lagu ogaanaya inta badan taariikhda ah. okay. meesha marka datadayna date-kii ugu dambeeyay ee ahayd inaan soo gelino ah. date-kii ugu dambeeyay haddaa ayt maxaa arkayna inay ahayd come here date. waxaa waaye datadan waxay ku egtahay June. marka waxaan dhihi karnaa June 31 inkastoo ay 15 ku egtahay.
هذا 31st وحدها بشاس صدني كويني وكل ما نيسي لكن ماسك قياسها. اوكي June 2017 يقول هاي ولبا as of حلقة الداتا كو اكتاي Control A يرويني color can see اللي كيرغات good ما وحي اكتا data professional hoos soo jiidkan design-kan mar walba adiga iskale si u qurxinaysid oo habeenaysid. yani waxaan sameeyay sida igula qurxooneed adiga waxa laga yaabaa si ka qurxoon inaad sameyn kartid no problem. qaybtan hoosena waxa geli doona footerka waxa ku qori kartaa hadii uu note iyo wax arabtid inaad sameysid ama disclaimer. color-kan aan ka bedelna qaybtan si aan ka dhigno black and blue bb. okay review hada fiirisid okay design-kan dib aan ugu noqono marka kan blue gadaan ka wada dhigna asaga dhan. how is it look inta dhexda ku jirtana white ka dhigna. okay kadib hada analysis kada fiirisid it looks good inkastoo labadan color ay yara kala duwan yihiin. labadan color way kala duwan yihiin. labadan color saan u mideyno colorka inta ku isticmaalna inta ku isticmaalno okay kan wax yara balaari by chart kan isku yara jabi soo simakan hadii kala laftirkiisa inaan tagno by region ka waxaan dhigi karnaa top 7 ka ama top 5 ka sida kan top 7 waaye kana top 7 ka dhigno by region. hadayna marka u imaano halkaan tag top 10 kan top 7 ka dhig. okay dashboard kan marka u imaano 7 u noqonaya soo ma jeedid. so marka waxaan leenahay top 7 by region. okay qaybtan hadda almost waa ka dhamaanay kan waa bayerkani good. datadan save gareyso mar kale preview ga tag. datadan almost waa dashboard dhameystiran anagoo waqti yar ku sameynay waxaan isticmaalnay chartskii iyo data analysiskii aan hore u sameynay. waxaan rajeynayaa inaan wada soconay. aan pdf u bedelo file tag waxaa dhahdaa export markaa dhahdaa create pdf leh kadibna meesha waxaa ku save gareysaa datada kale kugu save gareysan tahay publish. good. hadda qofka rabtida la share gareyn kartaa ama u diri kartaa. good.